Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuhan waa magaalada uu ka soo bilowday coronavirus kuna sii faafay daafaha caalamka. Malaayiin dad ah oo adduunka ku nool ayuu saameeyey, wuxuuna galaaftay boqolaal kun oo qof. Ku soo dhawaada xaqaa'iq ku saabsan magaalada Wuhan. Wuhan waa magaalada sagaalaad ee ugu dadka badan magaalooyinka Shiinaha, sidoo kale waa magaalada ugu dadka badan bartamaha Shiinaha, waxaana ku nool 11 milyan oo qof, waana caasimadda gobolka Hubei. Wuhan waxaa si rasmi ah loo aasaasay sanadii 1927. 1938 ciidamadii Jabbaan ayaa qabsaday magaalada Wuhan waxayna ka dhigteen saldhig militari oo weyn. Marka loo eego sahan la daabacay 2017, 79.2 dadka ku nool Wuhan waa diin la'aan ama waxay caabudaan dhaqanka awoowayaashooda. Buddhism-ku waa diinta ugu badan ay haystaan dadka Wuhan. Qiyaastii 14% dadka ku dhaqani waxay aaminsan yihiin diinta Buddhism-ka. Wuhan waa xarun muhiim u ah dhaqaalaha, ganacsiga, maaliyadda, gaadiidka, IT-ga iyo waxbarashada. Sidoo kale warshadaha waaweyn ee wax soo saara magaaladan waxaa ka mid ah warshadaha soo saara gawaarida, warshadaha birta, waaxda daawooyinka cusub, injineeriyadda, biology-ga, warshadaha qalabka cusub iyo ilaalinta deegaanka. Wuhan waxay ahayd magaaladii shanaad ee Shiinaha oo yeelato metro system ama tareenka dhulka hoostiisa maro. Laga soo bilaabo 1890, dhaqaalaha magaaladan waxaa laf-dhabar u ahaa oo ay ku tiirsaneyd warshadaha birta. Laakiin sanadkii 2010, wax soo saarka warshadaha baabuurta waxay ka sareeyeen wax soo saarka warshadaha birta. Magaaladu waxay hoy u tahay macaahidyo badan oo magac leh kana tirsan tacliinta sare, oo ay ka mid yihiin Jaamacadda Wuhan iyo Jaamacadda Sayniska iyo Tiknoolajiyadda ee Huazhong. Sanadii 2007, Wuhan waxay UNESCO u aqoonsatay inay tahay magaalo hal-abuur leh xagga dhisaanka ama naqshadaha.